indhaha qalbiga ka eeg ma fogo indhaha qalbiga ka eeg ma fogo waxaan yaaragabo حتى محسوسته. He was about 8 years old. ما باربرا أحد ما مارغريت باي أحد. لكن قبل she looks familiar. وفو قرني ولا أكتها. مارغريت مركا يرايد قبل عتان سجاك by almost height. لكن هذا مرة مركا سويناتي سويناتي تمهدي أفرو بيكير دكتي كيرلي أفرو أهو ماركتي أن هذه شير دتك more Afrocentric دتك وي أن ميكاب يرمدو بمرستا وحيسكو ده هذه شير إني more مدو السوء كيسيسو هالكدد بدل الناس جاي إسكو ده يعني هذه شير قف عبدو هذا أنا ما ماركت يدو لكن حي إسكو ده إني مدب كذا يرى dark كرايسو and timaheeda more carefully ka dhigto oo marka in a way wuxuu isiri hadana iyadii malaama aha gabadhan clearly waa gabadh madow light skin bay u egtay laakiin Margaret lama garan kareen markay yarayd haddaan qofka loo sheegin oo la oran waa madow ama madow baa ku jira lama garan kareen sidii aabaheed oo kale noqotay dhankii cadaanka ayay u badatay markiiba dabadeetana telefonkiisa ku soo qaatayo magacii buu geliyay wuxuu dareemay markaa in qoraa uu hore u maqlay ay tahay oo kale oo maaragtay the more uu sii research gareeyay sii eegay buugaa kale oo ay qortay iyo wuxuu dareemay markaa inuu dee qoftani qof dhowr jeer hore u maqlay tahay laakiin aanu wala waanu buugaagteedu romance bay u badanto aanu akhriyin لكن وحبا قلبي سكويري قفتن واد قرنيسا you know this person David مركا يسوو وحو نقضي نين بسنس مانهو لبادو با Ivy League schools باي كبحان يدو ستانفورد باي كبحضي يسوونا وحو كبحي MIT da ahaan wuxuu arkay inay isku yara dhow yihiin gabadhii horena uu garanayay markuu yaraa sanad baad ka weyneyd ma labaad ka weyneyd siduu u yara shakiyey David Qudus wuxuu noqday nin aad successful u ah company weyn oo tech company ayuu furay oo one of the giants ah oo maaragtay very successful and nin the very well respected aho la yaqaano weeye laakiin barihan dambe xaaskiisii oo ay laba hablood isu leeyihiin oo xaaska kaliya guursaday isagu markii uu guursaday barihan dambe iskumay fiicnayn marka isagii xaaskiisu barihan dambe iskumay faraxsanayn shaqadiisu buu naftiisa ku aasay nin aad iyo aad wanaagsan oo miskiin ah weeye humanity-na aad u caawiya oo maaragtay hadii jeer u nugul people of color dadka wadankan maaragtay minorities-ka ah laga tirada badan yahay mar walba he has a soft spot meel jilicsan maaragtay uu u nugul yahay dadka madowga iyo dadka laga tirada badan yahay iyo barnaamijyada caawiya hadii jeer iskuulada iyo scholarship badan buu bixiyaa company-giisu hadii jeer wuxuu isku dayaa inuu recruit gareeyo oo shaqaalaysiiyo madowga iyo maaragtay dadka minorities-ka ah awards badan baa lagu siiyey laakiin unfortunately ma baa jirta tirahdaa something's gotta give wanaag kastoo samayso wax walba oo aad samayso heer kastoo aad nolosha gaadho you can't have it all wax walba mar iskuma heli kartid waa laga yaabaa noloshaada inaad marar kala duwan wax walba oo aad doonayso inaad gaadho waqtiyo kala duwan laakiin weliga abadan inaad mar isku wada hesho waxaad doonaysay oo dhan mar inaad isku wada hesho waana tayna tusaysa dee adduunku waa qabyo sida mar walba wuxuu dhiman yihiin
yaa marba wuxuu dhiman yihiin un badaadna adduunkan kaga tegaysaa. marka nasiib daro dee guurkiisii ayaa safar garoobay oo maaragtay in muddaa hadeerto kalgacalkii iyo maaragtay jacaylkii ka dhammaaday. hees waxay jirtaa ay qaado naag la yidhaahdo Gladys Knight oo Maraykan waxay tirahdaa neither one of us wants to be the one to say goodbye. labadeena midna dooni maayo inuu noqdo kii hor odhanayay aynu kala tagno ama nabada. mid waliba uu doonayaa inuu tago. markaad qofka in badan wada joogteen isla soo socoteen ee kalgacalkii jacaylkii xiisihii dhammaado laakiin aad is-ixtiraamtaan labadiinuba, you have enough ixtiraam for one another, is-ixtiraamtaan, marka mid waliba wuxuu isleeyahay isagu ha hortago ama iyadu ha hortagto. marka that's waxay heestu qaadasho. waxay tiraahdaa neither one of us wants to be the one to say goodbye. labadeena midna ma rabo inuu ka kale ku yidhaahdo goodbye, laakiinse dee clearly way caddahay in kalgacalkeedii dhammaaday, jacaylkeedii dhammaaday. marka halkaasaa David iyo guurkiisu ay taagan yihiin. jacaylkoodii in muddaa hadeer wuu dhammaaday. 2 hablood bay korsadeen, jaamacada ka baxay, nolol qurux badan samaystay, wax walba way haystaan, wax walba, laakiin jacayl ma haystaan. marka at that point waqtigaa labaduba isku mar bay telefishinka eegayaan. labaduba isku mar bay telefishinka eegayaan. iyaduna markii ay sawiradii aragtay Lake House-ka ay soo waraysigii maaragtay ka aragtay, ilma isku soo taagtay, ilmo kulul baa ka timi. isna markuu arkay sidaas lag qalbigiisa wuxuu bilaabay inuu godlado, inuu wax dareemo, inuu soo xusuusto xusuustii berigii the Lake House. David isla markiiba waraysigii markuu dhammaaday telephone buu diray, real estate-kiisii buu la hadlay, kuwan guryaha iibiya. wuxuu sheegay markaa realtorkiisii inuu gurigii yaraantiisii uu ku koray uu raadiyo oo uu eego in uu maaragtay iibsan karo iyo in kale. qalbigiisii baa godladay. markiiba waxaa kusoo dhacday bartaasaan doonaya inaan ku noqdo. markaan ugu farxadda badnaa nolosheeda markaasay ahayd. I want to go back to my childhood. xusuusta kalgacalkii, daacadnimadii, simplenimadii, hawlyaridii. That's what I want. halkaasaan rabaa inaan ku noqdo. waa tahay qaybtii labaad ee The Memories of the Lake House. halkaa ayaynu kaga tegaynaa. waxaan idinkaga tegayaa heestii Khibrad Daahir ee jacaylka markaan yaraa. What a beautiful song, mashallah. Anyway, waxaan kaloo doonaya inaan idinla wadaago barnaamijkii Somali Women Global Network. waad ogtihiin waanu kicinay, meel fiican buu marayaa. waxaanu iminka soo bandhignay daweydinka arkay tobagyo badan oo aan la taaban jirin oo dadku ay halkaa kaarbidka hoostiisa ku wada xaari jireen ayaanu soo qufnay.
isbeddel weyn ayaan ku daba jirnaa. wax badan ayaan doonaynaa inaanu qabanno. walaalayaal waxaan soo bandhignay mawduuc mashruuc aan ugu talagalnay dadka masaakiinta inaanu guryo ugu dhisno iyo scholarshipyo gabdhaha ah. mashruucaas oo GoFundMe aanu samaynay online aanu lacag ugu ururinayno $120 aynu hore uga wada hadalnay. sanduuqii waanu dhammaystirnay walaalayaal, Somali Women Global Network. waxaan doonaynaa 5 Soomaaliya degtaba regionska inaanu qashinkan ina qarqiyay dadku ay dib u munaafacaadsadaan, waayo meel walba adduunka hadeer sidaasaa la samaynayaa. qashinku dadkii iyo badiiba uu liqaya haddaan la dib loo isticmaalin. marka waxaan rabnaa dadka masaakiinta, dad badan oo masaakiina baa nala soo xidhiidha, inaanu dadka barno sidii ay dib ugu isticmaali lahaayeen caagadaha iyo maaragtay dhalooyinka biyaha laga cabo iyo sharaabka oo aan guryo uga dhisno aada iyo aada u jaban, iyo scholarships. sanadka ugu horeeya 50 guri ayaanu 5 magaalo ka dhisaynaa oo 5 region ah. 50 gabdhoodna jaamacad ayaanu ka bixinaynaa. sanad kastana dabadeetana 100 gabdhood baanu jaamacada ka bixinaynaa, guryahana waa sii kordhinaynaa. marka walaalayaal fadlan idinkoo mahadsan hablaha Soomaaliyeed oo daweynagii ballanta lahayn, anigu waajibkaygii iyo ballantaydii waan ka soo baxay. projectgii waan kiciyay, wax badan baan intii qabtay. hablo kale waan soo recruit gareeyay ila wada barnaamijyada. hadeerto waqtigii sanduuqa aynu isku dartarsan lahayn baa la gaadhay. I need your help, we need your help, we all need each other. farkali fool ma dhaqdo. fadlan waxaynu inagu leenahay aynu samaysano, inagoo dalkeenii nadiifinayna oo communities waxaanu macaabeertii ku qoofalantahay baanu samaynaynaa. wax la taaban karo waxaynu inagu iska leenahay oo legacy inoo wadaa, kulligeen dhaxalgal inoo wadaa. kulligeen gabadh kasta oo ka qayb qaadata dhaxalkeedii magaceedii ayaa ka muuqanaya. habeenkii si fiican baad u seexanaysaa, waxaad ogtahay inaad wax ku darsatay wax wanaagsan. fadlan linka halkanaa soo dhigaya, membershipka kasoo qayb gala oo ku rida. markaad bixisaan 120 waliba kuwiina dibadaha jooga unbay dee inta badan noqonaysaa. dee magaciina iyo informationkii baa qormaya, dabadeetana waanu idin diiwaan gelinaynaa. waa $120 sanadkii, laakiin waa in mar la wada bixiyaa si ay wax ku ool noqdo. hase ahaatee it's nothing is too small. waxaad awoodaba ku rid, kasoo qayb gala walaalayaal. inaga weeye wax walba maalgeliya, wax walba inagaa laynaga guraa. inagu waxaynu leenahay ila wax kale laynooma ogole. waxaynu leenahay dalkeena inagoo nadiifinayna, dadkeena wax u qabanayna, wax muuqda oo indha daraandar dadka ku rida oo munaafacaad. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu dhulka fusuqina. This is what we're doing. fadlan click the link halkan descriptionka ayaan soo dhigayaa. fadlan walaalayaal click the link, website-ka gala, donate button-ka taabta, halkaas ku rida markaa lacagta. fadlan walaalayaal waynagii ballanay, waa idinkii lahaa waan ka qayb qaadanaynaa. fadlan kasoo qayb qaata. let's do this, let's make this happen, let's make this happen walaalayaal. khayr iyo barwaaqaan idin rajeynayaa ilaa iyo qaybteena saddexaad. jacaylkii yaraa baan soo gudlayaa yaraantii. I'm sure kulligeen markaynu yareerayn waxbaynu soo wada jeclaanay. jacaylkii daacadda ahaa ee nisanka ahaa waynu dib soo gudlaynaa. This is a beautiful story. khayr iyo barwaaqaan idin rajeynayaa. I love you guys. Share, comment, like, follow and subscribe. All right. indhaha qalbiga ka eeg ma fogo, indhaha qalbiga ka eeg ma fogo, waxaan yaaraga